يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك ترحم عبيدا واقفا. السلام عليكم داودة كسودو كنال كين فروها جوشا أنيقو نوحان أهي علي دولا يري الله سي فرحد إيا حسيلوني كوا إياغو مروغيسان هدانا دولا عدايا سي أيدادك كلا فرحد أسيان جوغيتان كوا دورشاي دورتين كليا كوا أديغا كو جعل هدابها قصب أوها علين كوا سيدا دوماليسيغا وغبحيين نولشاذا way xanuun badan tahay marka aad adigu og tahay runta balse wali lagu sheegayo beenta adiguna aad u dhageysanayso si aad u ilaaliso qulubta midka beenta kuu sheegaya adiga haday dhacdo inay adiga ku cidleeyaan waliba sabab la'aan waa inaad ahaataa kaliga sida iyaguba garabkaaga uga baxeen markaad door biday macsalaamaynta xanuunkeeda kaliya waxaa dareemi kara qof aan loo sheegin ama loo sharaxin sababta looga tegay xanuunka ay leedahay cidlada iyo boholyooga qulubta dhaawacan ma ahan mid sahal ku bogsata balse waxay noqotaa qulub naxariis badan balse go'aamadeedu ay adag yihiin qulubtaasoo si wacan u garanaysa marxaladaha kala duwan ee nolosha waqtiyada qaar waxaad ku farxaysaa waayitaanka dad aad moodaysay iyaga la'aantooda inay dhib tahay nolosha haddaba ahaw mar walba mid xoojiya xiriirka ilaahay subxaanahu wa tacaala si uu allah noloshaada uga ilaaliyo dadka aan kuu qalmin kaca oo dhammaystira howlahaaga waayo noloshu uma istaagayso murugada uma istaagayso cidlada iyo xanuunada aad dareemayso ilaahay subxaanahu wa tacaala taladaada u dhiibo waxaadna weydiisataa ilaahay inuu kuu fududeeyo arrimaha qalbigaaga dhex ahaaday saddex ha samaynin inta aad nooshahay xaqiiq waxaad ahaanaysaa mid dadka oo dhammi jecel yihiin haddaba si fiican ii dhegayso wax walbo aad jeceshahay samee laakiin qofna ha dulmin sida aad doonto wax u kala sooc laakiin ha isla weynaan weligaa si kastoo aad u carooto qofna erayadaada ha ku dhaawicin ka digtoonow duruuftaada inay beddesho dhaqankaaga xaalad walboo nolosha kugu soo wajahdo waxaad noqotaa mid ku sabraa insha allah rabbigeen wuu kaa faydi doonaa kurbooyinkan ku hareeyey